arrin ka baxsan maamul goboleedka koonfur galbeed iyo danihiisa ka baxsan weeye. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin, wabacd. Ramadaan kariim ayaan leeyahay guud ahaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay ka joogaan caalamka. Intaas kadib shirkayga jaraa'id ee aan maanta halkan ku qabanayo waxa uu ku saabsan yahay xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo iyo guud ahaan arrimahan doorashooyinka gebagabada ah oo maalmahan yooyootankooda iyo isku tuurtuurkooda uu soo badanayo kadib markii lagu dhawaaqay natiijada guud ee doorashooyinka dalka doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacay. Waxaa soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo doorashooyinkani ay sabab u yihiin oo soo kala dhex galay guddiga fiid ee heerka federaal ee hirgelinta doorashooyinka heerka federaal iyo maamul goboleedka koonfur galbeed. Waxay taasi keentay in markii lagu dhawaaqay natiijooyinka guud ee doorashooyinka dalka ay maamulka koonfur galbeed uu sameeyey in guud ahaanba magaalada Baydhabo uu ku xanibo xildhibaanadii lagu soo doortay ee koonfur galbeed, halka qaar kalena ay halkan Muqdisho ka ambabaxeen oo maxaan ku iraahdaa ay ku noqdeen magaalada Baydhabo. Waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo arrintaasi oo aan ummadda Soomaaliyeed aan u cadeyno mowqifkeena ku aadan arrimahaasi. Waxaa jirta in maxay ahayd ii sheeg heshiiskii 17 Sebtembar halkan lagu saxiixay kadibna dhowr shir la isugu yimid oo lagu heshiiyey habraacyada doorashooyinka dadban lagu aaday. Waxaana la sameeyey 2 guddi oo ah guddiga heerka federaal ee hirgelinta doorashooyinka ee fiid loo soo gaabiyo iyo guddiga la yiraahdo siid oo isaguna hirgelinta doorashooyinka oo ah maaragtay deegaanada doorashooyinka ka dhacayaan si technically ama si farsamaha ugu hirgelinayay halkaasi. waxaa sharcigaasi lagu qeexay ama heshiiskaasi doorashooyinka dadban lagu aaday lagu qeexay shaqooyinka ay kala leeyihiin labada guddi. Guddiga siid ee hirgelinta doorashooyinka wuxuu xaq u leeyahay inuu bixiyo ama aqoonsado musharaxa xildhibaanka isagoo markaa soo buuxiyey ama soo buuxinayo shuruudaha musharaxnimo ee laga rabay. Wuxuuna si rasmi ah ama si farsamo ah u qabanayaa guddigaasi doorashooyinka siid sida la wada ogsoon yahayba doorashooyinka musharaxiinta ama xildhibaanada laga soo dooranayo aagga ama dowlad goboleedka ay markaa u xil saaran yihiin. Shaqada guddiga fiid hirgelinta doorashooyinka heerka federaal iyaduna waxaa waaye inay kor joogteeyaan ay xaqiijiyaan in la raacay habraacii doorashada ee lagu heshiiyey. Marka aan soo gaabiyo ama aan soo koobno, guddiga siid wuxuu aqoonsanayaa ama shahaadada musharaxnimo uu siinayaa musharaxa u tartamaya kursiga, halka guddiga sare ee hirgelinta doorashooyinka ee fiid asaguna uu bixinayo shahaadada rasmiga ah ee guddiga shahaadada rasmiga ah ee xildhibaannimada guud ahaan marka ay doorashadu soo dhammaato. Waxaa dhacday in markii guddigu ay ku dhawaaqeen natiijada guud ee doorashooyinka ay hakiyeen 3 kursi oo ka mid ah kuraastii lagu soo doortay koonfur galbeed lagu soo doortay ay hakiyeen 103, 204 iyo 154. sidaa daraaddeedna ay keentay in xildhibaanadii la doortay lagu xanibo magaalada Baydhabo lagana hor istaago inay qaataan shahaadooyinkii iyo aqoonsiyadii ay xaqa u lahaayeen. Waxaad moodaa in wixii maxay ahayd farsamo ah oo lagu hakiyey ama maaragtay dacwad ah ama cabashooyin ama tabashooyin ka yimid kuraastan la hakiyey, waxaad moodaa inay ahaayeen wax laga wada hadli karo oo laga heshiin karo oo laga fariisan karo. Laakiin waxaad moodaa in siyaasad guracani marka ay hogaamiso arrintu
waxay maaragtay ka dhacaysaa haadaan ayay ka dhacaysaa. Oohintu orgiga ka weyn ayay tiraahdaa Soomaalida. Tabashada reer Koonfur Galbeed haddii ay wax ka tabanayaan guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heerka federaal waa wax laga wada hadli karo, laakiin waxaad moodaa in arrintani looga jeedo oraahdii caanka ahayd ee laga soo wariyey Cali bin Abi Daalib oo ahayd hada kalimatu xaqin yuraadu biha albaadil. kelimadani waa arrintani waa maaragtay tani waa kelmad xaq ah laakiin looga jeedo baadil. haddii looga jeedo waxa ay Koonfur Galbeed xildhibaanadii laga soo doortay ay u diideen inay qaataan shahaadada aqoonsiga iyo shahaadada xildhibaannimo, ay sababta ay u diideen ay taa tahay, waxaan u aragnaa inay tahay wax laga wada hadli karo oo laga fariisan karo oo laga heshiin karo. laakiin waxaad moodaa inay taasi ahayn oo siyaasad guracani oo meel kale laga hagayo ay arrintaasi hogaaminayso, oo maaragtay wax reer Koonfur Galbeed aan dan ugu jirin, shaqana aan ku lahayn, oo ay ka mid tahay arrinta Garbaharey iyo kursiga nambarkiisu yahay 86 ay tahay maaragtay wax loogu talagalay maaragtay loogu talagalay in lagu hor istaago arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan hor u socodka arrimaha doorashooyinka iyo dalkan inuu hor u socdo, horay u dhaqaaqo maaragtay looga jeedo weeye. taasna reer Koonfur Galbeed wax shaqaha ay ku leeyihiin ma lahan. 16 kursi ee taala gobolka Gedo ama magaalada Garbaharey haddii qabiil ahaan loo xisaabtamo 4 kursi ayay beeshani Digil iyo Mirifle ay ka leedahay. kuwaasna odayaashooda ayaa u taagan oo shir ku qabsaday magaalada Kismaayo. wax shaqaha aan ku leenahayna haba yaraatee ma jirto. kursiga kale ee maaragtay yaala magaalada Beledweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle asaguna sidoo kale. laakiin kuraasta 103 204 iyo 154 waxaa la hakiyey iyadoo guddiga doorashooyinka ay warqad ka soo saareen, ayaa si xoog ah oo habraaca baalmarsan waxa doorashadooda u qabtay guddiga siid ee heerka maamul goboleed ee Koonfur Galbeed. haddana wixii farsamo ah ama tabasho ah jira waa laga wada hadli karaa, laakiin ma ahan in maaragtay xildhibaanadii xuquuqdoodii iyo xasaanadooda lagu hor istaago. waxaan u arkaynaa inay tahay arrin nasiib darro ah, waxayna taasi meel ka dhac ku tahay sharafta, karaamada, dadnimada iyo xuquuqda iyo xasaanada xildhibaanada laga soo doortay Koonfur Galbeed ayay meel ka dhac ku tahay. waxaana kula talinaynaa xildhibaanada inay qaataan aqoonsigooda, inay qaataan shahaadadooda si ay u yeeshaan xuquuq iyo xasaanad la mid ah maxaan ku iraaday tan xildhibaanada kale ee deegaanada kale laga soo doortay ay qaateen oo kale. intaa kadib waxaan rabaa inaan maaragtay aan caddeeyo ama maaragtay aan ka hadlo arrimaha lagu hor istaagay maxaan ku iraaday in musharaxiinta in xildhibaanada maaragtay ay qaataan aqoonsigooda iyo shahaadadooda. waxaan rabnaa inaan caddeeyo inay tahay arrin ka baxsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo danihiisa ka baxsan weeye. waxaan rabaa in xildhibaanow aad fahamto waxaad adigu maaragtay ii sheeg aad lagugu diiday inaad qaadato shahaadadaada iyo aqoonsigaada, waxa looga jeedo inaad fahamto ayaa lagaa rabaa. guud ahaan maaragtay waa dhici kartaa in maaragtay meelo badan lagu xadgudbay, habraaca lagu xadgudbay, kuraasta dad loo xiray, aan lagu tartamin way jirtaa. laakiin kuraastani la hakiyey waxaa doorashadooda la qabtay iyadoo guddiga heerka federaal ay ka soo saareen maxay ahayd inaan la qaban karin ilaa iyo maaragtay lagu tartamo ama dib loo dhigayba. marka haddii kalsooni ay jirto waxay noqon kartaa ama ahaan lahaydba wax laga wada hadlo. marka waxaan rabaa
inaan sidoo kale aan u sheego ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan xildhibaanada laga soo doortay koonfur galbeedba sida aad ogtihiin baarlamaan wuxuu ku shaqeeyaa quorum ayuu ku shaqeeyaa consensus kuma shaqeeyo intaan akhrinayay 14 chapter ama cutub iyo 143 qodob ee uu ka kooban yahay dastuurka dalkeena u yaala kuma arkin meel baarlamaanku maaragtay ama qodob ka mid ah ama farqo ka mid ah ay sheegayso in baarlamaanku uu ku shaqeynayo quorum uu ku shaqeynayo consensus ayaan ula jeedaa laakiin baarlamaanku quorum iyo cod dheeri ayuu ku shaqeynayaa marka waxaa la rabaa in wixii adiga aad diidan tahay xildhibaanow aad muqdisho timaado adigoo xildhibaana sharfan aqoonsigaada qaatay shahaadadaada qaatay xuquuqdaada iyo xasaanadaada leh inaa halkan inta soo istaagto aad iska diido ayaa lagaa rabaa sideedana xarunta idinku aad ku shaqaynaysaan baydhabo iyo baraawe ama koonfur galbeed ma ahane waa meesha rasmi ahaan aad uga shaqayn doontaan oo xaruntiina ah waa magaalada muqdisho sideedana waxaan rabaa inaan maaragtay kuu sheego mudane xildhibaannimada laguu sheegayo waa 3 arrimood 3 jeer ayayna muhiimad leedahay number 1 waa matalaad oo dadkaadii matalayso number 2 waa xeer dejin oo aad xeer u dejinayso xeerarkii maaragtay xukuumaddu ay soo gudbiso aad dejinayso iyo la xisaabtan xukuumadda marka aad la xisaabtamayso horta shaqadaadii xildhibaano waa intaas muddaxileedka aad baarlamaanka joogtidna 3 momentum ama 3 mowsin ayaa ugu muhiimsan inaad fahamtaa lagaa rabaa mudane xildhibaan waa marka aad dooranaysid number 1 waa marka aad dooranaysid guddoomiyahaada baarlamaanka ood ka dhex dooranaysid intaasoo mudane oo u soo istaagtay inay qabtaan jagada afhayeennimo ee baarlamaanka marka labaadna waa marka aad intaasoo musharax madaxweyne aad madaxweynahaadii ka dhex dooranayso weeye marka saddexaad oo ugu dambaysana waa marka aad xukuumadda aad la shaqaynayso muddada 4 sano aad baarlamaanka aad joogto ra-iisul wasaaraheeda iyo ministerial cabinetkeeda ama golaheeda wasiirada aad baas garaynayso ama aad iska diidayso weeye inta kale oo aad baarlamaanka dhex joogto waxaad la dhiilgarayn doontaa howl maalmeedka caadiga ah iyo hindise sharciyeedyada ay soo gudbin doonto xukuumadda ayaad la dhiilgarayn doontaa laakiin 3 mowsin ee ugu muhiimsan ka qaybgalkaada matalaadaada la xisaabtankaada iyo xeerdejintaada iyo xaadirnimadaada aan looga maarmin intaas ayay maaragtay intaas jeer weeye waxaana idinkula talinayaa maanta si kasta aad ku timaadaan ama ha la idin soo doorto ama ha la idin soo xulo ama ha la idin soo dooqo ama si kale ha la idinku keeno maanta idinka ayay idin saamaxday inaad noqotaan xildhibaanadii koonfur galbeed haddii ilaahay cimriga idin daayo ama noo wada daayo waxaadna matali doontaan haddii eebbe idmo muddo 4 sana ayaadna matali doontaan baarlamaanka nagu matali doontaan sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaadan ka maqnaanin golayaasha lagu dooranayo ama lagu dhaarinayo xafladda lagu dhaarin doono 14 bishan abriil ee aynu ku jirno maalmo kooban oo 7 ku siman ay ka harsan yihiin inaadan ka maqnaanin ayaan idinka codsanayaa oo aad timaadaan wixii cabashaha aad qabtaan aad halkaa ka jeedisaan oo idinkoo xildhibaano ah oo xuquuqdiina iyo xasaanadiina iyo shahaadadiina iyo aqoonsigiina haysta aad halkaa ku diidaan ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa arrin sooyaalka taariikheed ee la xiriira arrimaha siyaasadda iyo saami qaybsiga dadka reer koonfur galbeed arrintan u dhow maaragtay ay soo martay ayaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo sanadkii 2000 magaalada Carte markii maaragtay shirkii maaragtay lagu doortay dowladdii kumeel gaarka ee ugu horeysay
waxaa dhacday arrintan oo kale u eg. Shirkaasi waxaa ka qaybgelayay wafdi ka socda beelweynta Digil iyo Mirifle ayaa ka qaybgelayay oo ay hogaaminayeen hogaankii RRA-da ay hogaaminayeen ayaa halkaa maaragtay uga qayb galeen shir dhowr bilood ku dhawaad muddo 6 bilood ah ka socday. kadib waxaa ka soo baxday dowladdii Cabdiqaasim uu hogaaminayay dowladdii Carte maaragtay loogu magac daray ayaa halkaasi ka soo baxday. waxaa lagu heshiiyey ama dadka Digil iyo Mirifle ay markaa ku wada hadleen inaan la doonan la raadsan qof iyagu ka mid ahna aan u istaagin maxaan ku irahdaa kursiga afhayeenka baarlamaanka. arrintii iyada ah inkastoo dad badani ay markaasaa u qaateen, haddana waxaa khilaaf siyaasadeed soo kala dhex galay hogaamiyihii xilligaasi RRA-da allah u raxmadee labadaba way dhinteen, Dr. Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud iyo Cabdalla Deerow Isaaq ayaa khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhex galay. Cabdallana waxa uu ka mid ahaa shir guddoonka ragga shirka hogaaminayay ayuu ka mid ahaa. wuxuu go'aansaday inuu u istaago ama u cararo jagada afhayeenka baarlamaanka inuu istaago ayuu go'aansaday Cabdalle. Shaati Guduud iyo kooxdiisana way diideen. halkaa waa lagu kala qaybsamay. inta badan waxaa la isku raacay inaan loo istaagin jagadaasi ama kursigaasi afhayeenka baarlamaanka aan loo istaagin. waxaa la sheegaa 6 ilaa iyo 7 xubnood oo Digil iyo Mirifle ka socotay ayaa dooratay Cabdalla Deerow dooratay. inta kale waxay ahaayeen Soomaali kale ayay ahaayeen. markii dambe waa laga wada hadlay, waa laga heshiiyey. dadkaas waxay diidanaayeen, way caddaayeen, laakiin mudanayaal waxaad moodaa hadda idinku waxaad diidan tihiin xitaa inaysan caddayn. raggaas waxay diidanaayeen muddo hadda 22 sano laga joogo 2 qodob bay diidanaayeen. waxaa jirtay 20 kursi ama 20 xildhibaan oo lagu siyaadiyey maxaan ku irahdaa tirada xildhibaanada 225 ayay Soomaali ku heshiisay. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wuxuu codsaday dad badan oo Soomaali ah ayaa dhibayay buu yiri oo ma aragtay joogay oo rabay inay ka qayb galaan, marka idinkuna qabiil ahaan waxba ma aadan siinin buu yiri. marka 20 kale hal iigu daru yiri 20 xubnood ayaa la siiyey Ismaaciil Cumar Geelle. marka 20kii wuxuu soo siiyey qabaa'ilka aan Digil Mirifle ahayn ayuu soo siiyey, asagoo markaa sheegayay dad prominent people ah oo maaragtay xoogaa qadarin leh inay ahaayeen, laakiin haddana faqitolkii kama janna tagay ayay tiraahdaa Soomaali. ugu dambeyntii qofka qabiil buu noqonayaa, ilaan qof geed ka dhashay ama dhagax ka dhashay ma jiro. xisaabtan ayaa meesha ka soo baxay. hogaankii RRA-da shirka qaybgalayay way diideen. waxay dhaheen 20 xildhibaan oo la siiyey qabaa'ilkan kala weeye, oo hal qof xitaa aan laga siinin dadka Digil iyo Mirifle. qodobkaa way diidanaayeen. qodobka labaadna wuxuu ahaa inaanba loo istaagin jagada ama afhayeennimada baarlamaanka. marka waxaad moodaa inay dadkaasi ay caddaayeen waxay diidanaayeen. waxaan ilaa ay hadda fahmi la'ayahay waxa idinku aad diidan tihiin, maxaad diidan tihiin. marka waxaan rabnaa inaad maaragtay ii sheeg aad ka soo qayb gashaan xafladda dhaarinta oo dhici doonta 14 bisha Abriil. aad ka soo qayb gasho mudane xildhibaan ayaan kaa codsanaynaa. waxaan soo dhaweynayaa dadaalada socda oo xildhibaanada dhexdooda ka socda oo Baydhabo ka socda oo maaragtay ay leeyihiin waan ka qayb galaynaa xafladda dhaarinta. waxaan diidanahay halkaas ayaan ku sheegaynaa ragga iyo gabdhaha leh ee mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed lagu soo doortay. waan dhiiri gelinayaa. waxaa la rabaa fikirkaas in la xoojiyo, aad timaadaan, aad ka soo qayb gashaan xafladda dhaarinta aadan ka maqnaanin, si aan lagugu doorin guddoomiyahaada baarlamaanka iyo madaxweynahaaga. adiga ka dhaxulo guddoonka baarlamaanka dadka u taagan, adiga ka dhaxulo madaxweynahaada dadka u taagan musharaxa madaxtinimada dalka u taagan. marka waxaan rajaynayaa inaad maaragtay ii sheeg aad ka soo qayb gali doontaan xafladda dhaarinta oo dhici doonta haddii ay beedmo 14 bisha Abriil. waad mahadsantihiin.